السلام عليكم ورحمة الله أصحابتي إذا سيتيهين كان وحوية صحيفة إلكترونيك أو ليرة هذو جيسك أفريكا أما إيست أفريكان نيوز مقال آد أفيعان أو إنترسانت عن كهلي بصوهلي السؤال بهال كان ويديو وحليري how old are the Somali people يعني ضدك الصومالي ذا عمرقو ذا انتبه لقو قياس كرا طبعا مقال كان aad baan uga helay so that's why iri Soomaalida waa inaan u soo gudbiyaa qof walba waa inuu ogaadaa wax walba طبعا waxa jirta wax la yiraahdo waxa isku xiran adiga marka lagu garanayo qofka kaliya DNA lama baaro waxa la baaraa luqadaada cimrigiisa waa intee waa cilmiyada hadda oo aad muhiimka u ah because luqada waxa ku sheegaysaa shacabkan intee sano buu joogay cimrigoodana intee baa lagu qiyaasi karaa marka maanta DNA diya luqada way isfeer socdaan the same result baa kula helaysaa maababkan marka hadda aad halkan uga jeedaan ama ha noqoto maabab DNA da say u kala gudbeen okay Afrika gudihiisa ama Arabian Peninsula ilaa Europe sideena luqadahana hadhow u kala baxay tamaan waxa interessant ka ah oo aad u fiican waxa weeye ina af Soomaaliga luqadiisa oo ina la helay inuu af qadiim yahay uu facweyn yahay can you imagine ina afkaaga lagu qiyaasay 22,400 sano before Isa alayhi salam intuu dhalan yani waxa laga hadlayaa from now okay sidoo maqaalkan u sheegayo okay 25,000 sano weeye inta la hayo luqadan cimrigiisa waxyaalaha oo aad cajiibka waxa weeye maqaalkan soo qoray ina qof DNA da Soomaalida ah ama loo oran karo Soomaali qadiim ah ina laga helay jirkiisa wadanka Spain ama Spain sida loo yaqaano oo cimriga lagu qiyaasay jirkaas 7,000 sano ka hor inuu ahaa can you imagine yani halkaas xataa dad baa u qaxay joogi jiray DNA deena leh طيب maqaalka hadda si dhameystirayna wuxuu ku leeyahay oo kale afka Soomaaliga maanta lagu hadlo wuxuu ka go'ay afafkan hadhow ama Afro Asia kala yiraahdo 4,000 sano BC يعني 6,000 sano ka hor Soomaaligan maanta lagu hadlayo exactly xuruufaha la isticmaalayo kelmadahan way jirtay waxa ka sii daran waxa weeye oo maqaalka aakhirkiisa waxa ku qoran طبعا luqadda Soomaaliga waxa la yiri si oo waadixa bay wixii ka duugsan tahay ka qadiimsan tahay luqadaha Semitica ama ha noqoto luqadaha jicsiga loo yaqaan يعني luqadaha Tigriiga ku hadlaan ama Amxaarta ama ha noqoto luqadda Carabiga luqadaha Semitica ama luqadda Saamiya waxa loo yaqaano luqadaha ka horeeya طبعا cilmi baarisada koor xataa soo dhigay wuxuu bacadeeyay xataa luqadahan Semitica lagu leeyahay oo maanta ama ha noqoto luqadda afka Hibriga Yahuudu maanta ku hadlaan afka Amxaarta Xabashidu ku hadlaan qaarkood ama afka Carabiga inay asal ahaan yihiin luqado ka soo farcamay afafka especially marka loo galo Afro-Asiatic khaasatan waxa aad looga hadlaa af Soomaaliga horta halkaas la marayaa marka as a Somali person tahay qof Soomaaliya oo muwaadin horta oo luqadaada iyo facdaada xataa DNA hadda inkirtid atrad oo gaal baa keenay luqadaada saaxiib ma inkiri kartid halkaas horta ku ogow